السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتون أكسن دawada meel kasta oo dunida nagala socotaan waa maalinimo axada bisha Augustna waa 2 sanad 2026 qodobada dalka waxaa ka mid ah Ra'iisul Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo saddex arrimood oo waaweyn ay ku sugayaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxaan eegi doonaa saddexda arrimood ee la filayo in Ra'iisul Xamse markaasi uu kala hadlo gabi ahaanba dadka deegaanka saddexdaas arrimood waxay kala yihiin in uu firdhiyo markaas culays ballaaran oo hadda saaran uu gabi ahaanba kala hadlo dhinaca kale odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka ayaa cabasho weyn qaba waxa qodobka saddexaadna uu yahay maxaabiista markaas ku xiran magaaladaasi Laascaanood ee Somaliland dhankeeda ka xiran oo la filayo in uu Ra'iisul Xamse markaasi sida wararku sheegayaan uu soo jeedin doono in loo qaado dhanka magaalada Muqdisho arrinkaas suurtagal ma noqon doona ayaa eegi doona ma ku qanci doonaan maamulka halkaasi ka jira maadaama ay jiraan khatar kala duwan oo la xiriira maxaabiistaasi iyo waliba in ay wajahaan dhibaatooyin waaweyn maalmihii ugu dambeeyayna laga cabsi qabay argoosi ka dhana markaasi raaqyada ay Somaliland ka wado deegaanadaasi in uu ku duldhaco maxaabiistaasi warka gudmarkaas la xiriira ayaan soo qaadan doonaa dhinaca kale waxaa neegi doona madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa fariin u diray qurba joogta Somaliland isagoo sheegay in ay gabi ahaanba ka qayb qaataan markaasi colaadaha oo ay joojiyaan colaadaha ay ka qayb qaadanayaan iyo waliba in ay qaataan door muhiim ah oo ku aadan xilligan maalgashiga dalka iyo kor u qaadista markaasi nabadda iyo xasiloonida iyadoo dhinaca kale laga wada raaqay xooggan galbeedka Somaliland magaalada Boram waxaa ka baxay wafdi xooggan oo dhinaca deegaanka Geerisa gaari halkaas oo la filayo in gogol nabadeed ay ka furanto maalmihii ugu dambeeyayba waxaa ka taagnaa deegaankaasi Geerisa guud ahaan barnaamijyo kala duwan iyo waliba dagaalo ayaa ka dhacay mararka qaar ay dad ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen balse ugu dambeyn waxa ay Somaliland doonaysaa in halkaas lagu qabto gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo labada beelood ee markaas Ciise iyo Samaroon xogii ugu dambeeyay arrinkaasi la xiriira ayaan soo qaadan doonaa dhinaca kale waxaa dalka Mareykanka lagu maxkamadeynayaa Cabdikariin Iidle oo laga qaaday Soomaaliya isla markaana ay Soomaaliya u dhiibtay wadanka Mareykanka Iidle waxaa lagu haystaa in uu markaasi gabi ahaanba lunsaday lacag fara badan oo dalka Mareykanka laga lunsaday waxaan eegi doonaa saacadihii ugu dambeeyay waxa ka dhacay maxkamadda dhexdeeda iyo gabi ahaanba qaabka loo maxkamadeeyay Iidle waxaa dhinaca kale aan soo qaadan doonaa wararka la xiriira dowladda Sacuudiga ayaa waxa ay Mareykanka u soo jeedisay inuusan qaadin weerar guud ahaanba dalka Iran ay una ku qaadin haddaba maxay tahay markaas sababta arrinkaas ay u leedahay dowladda Sacuudiga maadaama uu xilligan ka socdo dagaal ballaaran marar kala duwan iyaga xitaa la weeraray oo duulaan lagu qaaday gantaalana ay ku soo tuureen markaasi dowladda Iran balse ugu dambeyn Sacuudiga ayaa waxa uu u soo jeedinayaa Mareykanka inuu qaadin weerarkaasi waxa wararku ay sheegayaan in Sacuudigu uu cabsi weyn ka qabo in haddii weerar lagu qaado markaasi dowladda Iran in iyaga ay tahay markaasi cidda ugu weyn ee dhibaatada ay ka soo gaarayso Mareykan iyo Iran isma gaarayaan Iran waxa ay duqeynaysaa oo ay baabi'inaysaa markaasi dowladaha Carbeed dhinaca kale saddex qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay maqaaxi ku taala Moscow caasimadda wadanka Ruushka qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ee barnaamijka maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dhanka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa gaaray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo Ra'iisul Xamse ayaa booqashadiisii markaasi labaad ku tagay magaaladaasi Laascaanood waxaana hadda uu tagayaa xilli xaalad adag uu wajahayo maamulka halkaasi ka dhisan isla markaana ay dadka deegaanka qaybo ka mid ah tilmaameen in ay maamulkaasi uu bilaabay in lagu kala tagaba waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ay aad uga walacsan tahay hanaqaad la'aanta maamulkaasi uu hanaqaadi la'yahay iyo waliba in ay isla qabsan la'yihiin ama guud ahaanba isla jaan qaadi la'yihiin labadii dhinac ee loo dhisay maamulka lagu magacaabo Waqooyi Bari dowladda Soomaaliya qorshayaashii ay ka lahayd maamulkaasi inta badan waa ay ka gaadhay waxaana qorshaheedu iyada uu ahaa ma ahayn maamul shaqeynaya oo markaasi la mid ah maamulada Soomaaliya halkaasi laga dhiso qorshaha ugu weyn ee dowladda federaalka wuxuu ahaa in lagula dagaalamo markaasi oo guud ahaanba la tuso caalamka iyo dowladaha iyagu Soomaaliya taageera sida Turkiga oo kale in Soomaaliya ay joogis ku leedahay markaasi gabi ahaanba waqooyiga sida ay u arkayaan magaalada Laascaanood oo la joogana waxa ay meesha ka saaraysaa ama ay yareynaysaa culayska kaga imanaya dowladda Soomaaliya ku aadan deegaanadaasi oo dhanba laga bilaabo gaalkacyo oo waqooyigeeda markaasi ay koonfurteeda ay joogaan marka laga soo bilaabo ilaa iyo laga tegayo Djibouti dowladda federaalka Soomaaliya wax lug ah kuma laha iyo waxay joogtaa qayb ka mid ah oo Laascaanood ah
way u kala fiican tahay dowladda Soomaaliya taasoo keenaysa leeyahay marka inay ku mitido gabiyahan magaaladaasi Laascaanood oo ay muujiso sawir ah inay dalka qaybo badan oo kamid ah ay joogaan. dowladda Soomaaliya ayaa taniya markii ay xilka la wareegtay waxa ay ku soo koobantay markaasi meel gooni ah gaar ahaan magaalada Muqdisho oo inta badan dhaqaaqyada dowladda federaalka Soomaaliya uu ku koobnaa. si kastoo xaalku uu noqdo waxaa sidoo kale magaaladani ay dagaal weyn gabiyahanba ay kula jirtaa Somaliland iyadoo ay dowladda Soomaaliya u arkayso fariisin muhiim ah oo laga qaawisi karayo Somaliland. si kastoo xaalku uu noqdoba waxaa hadda ku socday raaqyo xoogan iyo duulaan siyaasadeed ama farsamaysan oo ay Somaliland kusoo qaaday deegaanadaasi. xildhibaano fara badan ayaa goostay oo dhanka Somaliland aaday, kuwa kale ayaa hadda ay wararku sheegayaan inay dhanka Somaliland u sii jeedaan. waxaa sidoo kale ku jiraba mas'uuliyiin iyo waxgarad iyo ciidamo badan ayaa dhinaca Somaliland sidoo kale ku sii jeeda, taasoo keentay in Ridaar Xamsi uu soo dhoofo. Ridaar Xamsi 3 qodob ayuu u imaaday magaalada Laascaanood. qodob koowaad waxa uu yahay in Firdhiye uu kala hadlo gudaha maamulka sii baqtiyay ama sii dhamaanaya halkaasi ka jira iyo waxa sababay markaasi in maamulkiisu uu socon waayo ama uu hana qaadi waayo. qodobka labaad waa in uu kala hadlo waxgaradka deegaankaasi waxay ku dhaliilsan yihiin markaasi ama gabiyahanba aanay ku taageersanayn Firdhiye iyo qaabka wax u wado iyo sida wax u socdaan iyo maamulkani sababta uu hana qaadi laayahay. qodobka saddexaad ee muhiimka waxay wararku sheegayaan in uu kala hadli doono dhanka maxaabiista halkaasi ku xidhan ee Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ay jireen dhaqdhaqaaqyo xoogan oo cabsi weyn abuuray, taasoo keentay in gabiyahanba maxaabiistaasi laga cabsi qabo inay ku dul dhacdo carada dadka iyo sidoo kale maleeshiyaadka hubeysan iyagu halkaasi ku sugan qaybo kamid ah oo marar kala duwan dilal gudahanba argagax la geystay, taasoo markaasi keentay in cabsi weyn la dareemo oo ku aadan in dadkaasi ama gudahan maxaabiistaasi ama saraakiishaasi ay halkaasi ku dhintaan. si kastoo xaalku noqdo waxaa wararku ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay soo jeedinayso ama ay soo jeedin karto, mana aha markii ugu horeysay ay soo jeedinayso, inay mar kale ku soo celinayso ay soo jeedinayso in maxaabiistaasi loo qaado magaalada Muqdisho maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadu ay tahay cidda mas'uulka ka ah maxaabiista oo ciidamadii dhamaa ee asluubta markaasi ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. xabsiyadii dhexe ee u dhaxeeyay gabiyahanba deegaanada Soomaalidana ay joogaan magaalada Muqdisho oo ay tahay magaalo dhexdhexaad ah in halkaasi la geeyo oo maxaabiista laga qaado magaaladaasi Laascaanood ayaa la soo jeedinaya sida wararku sheegayaan. lama oga marka inay aqbali doonaan dadka deegaanka iyo maamulka halkaasi ka dhisan iyo gabiyahanba markaasi odayaasha dhaqanka, balse waxay ugu tilmaamayaan in dowladda Soomaaliya ay doonayso in halkaasi la geeyo markaasi maxaabiista inta laga helayo markaasi xal ay ku wada hadli karayaan Somaliland iyo markaasi dadka deegaankaasi. dhinaca kale dowladda federaalka waxay u aragtaa fursad weyn oo ay rabto in gabiyahanba ay Somaliland kusoo dabto oo ay wadada markaasi ku hesho isla markaana wada hadal ay Somaliland xiriir kula sameyn karayso. hadda Somaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya wax xiriir ah oo hadal u dhaxeeya ma jiro, balse haddii maxaabiista halkaasi la geeyo waxaa jiri karaya fursado ay markaasi ku wada hadli karayaan labada dhinac. haba ahaato waxa laga wada hadli karaya xitaa maxaabiista iyo raggaasi gabiyahanba Somaliland qiimaha weyn ku leh ee iyagu ay gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. dhinaca kale waxay wararku sheegayaan inay jiraan dad dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo wasiiro iyo isugu jira xildhibaano oo Somaliland ka soo jeeda isla markaana isku hayb ay yihiin saraakiisha halkaasi ku xidhan oo dowladda federaalka Soomaaliya ka codsanaya in halkan la keeno oo magaalada Muqdisho markaasi la geeyo. dhinaca kale xogaha soo gaaray waxaa qayb ka madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa uu u soo jeediyay maanta shirka qurbo joogta ayaa ka furmay magaalada Hargeysa, isaga ayaana furay waxaana uu madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ugu baaqay qurbo joogta Somaliland inaynan ka qayb qaadanin colaadaha iyo horintooda iyo weliba qabaa'ilada in la isku dhufto, waxaana uu tilmaamay in bedelkeeda ay qaban karayaan hawlo kale oo muhiim ah oo markaasi ay wax badan ka heli karayaan adduun iyo aakhiraba. waxaana uu ugu baaqay in qurbo joogtu ay yihiin door fiican oo markaasi xilligan bulshada Somaliland muddo dheer markaasi ay abaal badan uga hayaan nolosha qaybaheeda kala duwan, loona baahan yahay inay weli kasii qayb qaataan marka la joogo dhanka horumarinta dalka. qurbo joogta ayaa berihii u dambeeyay waxay ahaayeen hadalhayn aad u ballaaran oo kadib markii qaar ka mid ah waxgaradka Somaliland iyo abwaanadu ay farta ku fiiqeen sheegeen in dowladdiiba 90% ay tahay qurbo joog isla markaana aanay wax wara ka haynin dalka loona naxayn, taasoo keentay in qurbo joogta lagu markaasi ifiyo toosh. madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ugu baaqay qurbo joogtu in dhinaca kale ay colaadaha markaasi u nugul yihiin oo colaadaha ay
hurintooda qayb weyn ka qaataan arrinkaasina ay joojiyaan. dhinaca kale waxaa deegaanka Geerisa ee galbeedka Somaliland ka furmaya shir dib u heshiisiin ah oo la doonayo lagu heshiisiyo markaasi labada beelood ee Gilibirsi iyo sidoo kale Ciise. waxaa magaalada ka baxay Boorama wafdi culus oo markaasi dhinaca ku wajahan. dhinaca kale Iidle oo markaasi ahaa nin laga qabtay magaalada Muqdisho isla markaana Mareykanka uu halkaasi ka qaaday ayaa maxkamad ka soo muuqday. ninka Soomaaliga oo dacwad oogayaasha Mareykanka ay ku tilmaameen shakhsiga labaad ee ugu awoodda badnaa shabakadii musuqmaasuqa ee markaasi Feeding Our Future ayaa jimcihii diiday dhammaan eedaha loo haysto kadib markii lagu qabtay oo laga soo wareejiyay markaas Soomaaliya kadibna la horgeeyay maxkamad federaal Mareykan ah. dhinaca kale waxaa xogahan soo gaaraya qayb ka ah dowladda Sacuudiga waxay soo jeedinaysaa in markaasi aanan la weerarin dalka Iran iyadoo ka cabsi qabta in dagaalkaasi uu ku soo noqon karayo iyaga oo ay kala kulmi karayaan cawaaqib xun iyo sidoo kale in weeraradaasi dhibaato weyn ay u geysan karayaan. Akhaarta sharafta leh waddan nagala socoto tan iyo kulanti dambe.